ممنوع إن شر له هذا نيروبي أو شرر عادي workshop يسمح حسب مجرى شر قبل قدام دوك داعي ريجن كودا خصي ريجن كودا خصي يعني شركة لكن شركة الدولة ولا جوجين الصومال خصبة يقصدين هذا سان كل شيء بقول دولار تنهايد هي ودن كان يرى هذا وكشقينا وعالميا أيضا لا يقع إنجوية لكن كون صومالي ذا حرمت ضحية نيروبي مركان دولة كسب بيرني الدولة عصب تيمي كل وقت نيروبي تشوفين وفق الصومالي أتجاه أما لا شقينا النيروبي هذا تيجي تبص دراية وفق بحايا وزير كحيان أجاسيميال نيروبي ولا سكشوايا هوتيلا للدجينا يشرب الوقابنا هل workshop أو سيميناري رأوا مع المسؤولين أنت سبقوا بعد تجدوا يهوتيلا يو consultants يو دكتور للتجارة يو قصلوا الوجب سنة ما دام العكس كله بحث لو هاكل بحث دقالة سكين يقوله ما دام كان مركا السيبوناك عن سفير كاها أو سومري مرخانتي وحنوها وأركتيري ما أنا كسا سومالي دريري سعيدة كبلا دوري أفرتن ديارات أيا كينيا ماذا ما أنا كستا ولو عن ما أنا كي ماذا وحكدو أو سومالي ماذا دوري أفرتن كات ديارات أو يتواني كبلا سوق الجلنجات أميرة ما أنا كستا وضنك ميال كستا تولكس تجينا دوري توان كلا حكيس خانة كارجو ما نقول كوا أمس ومشرام كوا حكلا بشقيم كوا هذا جرجاروت كوا واحد زي مركع دورة ولا ولا قلم الصبح وشعب بحمد كسر بقول دراسارين تذكر إيمانيان العد بوذا وطن شرب إيمان هوتيل نيروبي هوتيل كسر واحد أوبن وجوجا صومالي قل كسر قولك شركة ما كسر حكوارس صومالي شريس هذا شرنا سفارده يهايده حلو شرنايا شر مشروع صومالي كسابسن ودن كلا حلا يقبنا ولا كينه بس الدرجة مركو حكم ده ودك شركة إيمانية لو يرايا وهذا سفر كرباس وراهسته مركو قارقو عاركيسا قف طبعا شكو صون نقطي وكلي لو يريا كوي شقada qabana wadanka jooga maadaama passport haysan fiisa haysan lama geeyo Nairobi nin passport diaspora wata passport kala wata ayaa qaadayo imaanaya marka meeshii waxyaalaha dhibaatooyinka waaweyn waxa weey waxaad arkaysaa NGO yar oo budgetkeedu iska yahay $200,000 ayaa waxay isticmaalaysaa 80% lacagtii oo ku bixinaysa waxaan loo yaqaan overhead cost ama kharashkii ku baxay la taliyaashooda wakiiladooda saaxiibadood dadkooda waxa soo finish markaan arinta aragnay marka waan soo jeeday talo madaxdan ku yiri in la ogolaado codsaday in hay'adaha la soo celiyo in hay'adii isna la shaqeynaysa wadanka shaqeynaysa Nairobi ka soo jeeday madaxa ka codsatay dalka golaha wasiirada madaxweynaha u tagay madaxweynaha fikirkii waxaan ku madaxweyne arintaasan damacsanahay ra'iisul wasaaraha u tagay golaha saaxiibada wasiirada ay badan ka sheekaysanay gabdho wasiiraha fikirkii markii aan isla qaadanay runtii qof walba markuu dhinaca baan rogrognay noo muuqat macquul ayaan go'aan ka qaadanay waraaq waan soo qoray aan leeyahay hay'ad dambe oo Nairobi joogto aan la shaqeynayna ma jirto daan soo guurin mudana u qaban tiimna oo sahray dabagala marka kulligood oo u yarnay shir baan la galnay waxaan ku leeyahay intaas haystaan maadaama guriga Kristaan xafiiska u Kiraysan yihiin dhowr bilood waxaan siinay iska fasaxan shaqaalihii ciidaan imaanayna ay intaas fursad u siiyaan soona xiran xafiisyada ay guriyaha wadanka yimaadaan halkan guriga Kristaan guriyaha Kristaan Soomaaliyeed 80% marka mashaariic lacag u isticmaalayeen inay ku bixiyaan hoteelo iyo guriyo iyo meel kasoo Nairobi wadanka soo galiya halka ku soo noqonaysa halka ku soo noqotay waxa laga helay marka in guriga Soomaaliyeed ka Kristaan baabuurta ka Kristaan shaqaale Soomaaliyeed qortaan waardiyihii Soomaaliyeed qortaan askartii ilaalinaysa Soomaaliyeed qortaan macnaha lacagtii hatta hadii hay'adu ku baxdo wadanka galis dadka shaqo abuurkii fiisas baahan ku yimaadaan oo ogta ciidatii wadanka waxa u baahan yahay hadda ajnabi yihiin waqti shaqaalaha oo inay shaqaale soo qaato work permit-ki cashuurna bixiyaan oo wixii income soo galo si kale hadda wadanka dakhli baa soo galay marka intaaba Kenya ku bixi jirto sababta waxa weeye xogta ogaanshii hore aan ogaa markaan imaan arkay xaalad say tahay sanadkaas waxaan soo saarnaa buug cadeynaya gargaarka wadanka soo gala faahfaahinaya
wadanka soo bixiyay qolo kasta waxay sheegay tiri waan Soomaaliya ku bixiyay ma noqdeen hay'ad bangi oo kale ama ha noqdeen safaarado ama wadamo kale marka fiirsi marka $2 bilyan $3 bilyan baa Soomaaliya ku bixin Soomaalidana fiirisay xaaladdan ku sugan oo og tahayna wixii ka socda Nairobi qofkii damiir leh shoonaya macnaha waxyaalo badan marka fiirso marka kuma siinayo inaad si ogolaatay xaaladdan lagu sii jiro waa soo guureen marka naqayqayliyaan oo waxay sameeyaan oo iyaga laftooda dawladda Kenya dad badan arintii dad nimca iskaga jira waasaas soo guuraan hadii kale shaqo ma jirto wala soo guur maanta hay'adan u baahano meelahan degan tahay ama waxay degan gobolada wadanka kala guureen ama xawar bay joogaan oo imaanay أنا وياه بدل كي يجوا وسير ما بتشوف ممنوع حتى هذا وياه وضع على ممنوع إن شر له هذا نيروبي أو شرر عادي وكشوبيس وحسب مجرى شر قبل قردان دوك دعاء ريجن كورة خسائر ريجن كورة خسائر مش شركة لكن شركة الدولة ولا جوجين الصومال خسارة يخزي هذه هذه ما كذا بحنا ناي معنا UN هلا هذا UN كو واحد جرا ليرة FSNAU هذا FAO برنامج مشروع كان نيروبي هذا إنه تسوي رجعنا تاعي مشروع ير أيها الشيء نيروبي لكن هو يراته هاي جوكتا مشرت هذه هو دم dadkii shaqada qarmadii iyo Soomaaliya wax tara ka shaqeeyeen dadkii expertiga dadkii maxaad saarnaa yeeshay hay'adii danikii didaad anagu Soomaaliya nahay wadankan soo anaga iskale saarmo ninkan uga shaqeyneen qorshaha noo qaran iyo siyaasadeed ku shaqeyneen deewa ma hasan yahay malka ka shaqo ka raasan kara oo dunka badan dad kale Soomaaliya oo qalma shaqooyinkan dad fara badan Soomaaliya marka shaqo ku hela oo meesha ninkaas u diiday meeshii ay ka baxeen ajnabi walaaliga gabdha Soomaaliya ka shaqeeyay maanta wadanka jooga oo runtii waa qiyaasi kartaa qof wadankiisa jooga lacag fiican lagu siiyo nabadgelyada qayb weyn ka qaadanaysa